garanaya qofka inuu ilaahay waafajiyo shahaadada inuu waqtiga u farxo calaamada kale waa dhabanadiisu inay dhididaan waqtigaas nabigu waxa uu yiri calayhi salaatu wassalaam almu'minu yamuutu bi'araqi aljabin qofka mu'minka marka uu dhimanayo labadiisa dhaban ayaa dhidid ka soo booda dhidid buu ku dhintaa buu nabigu calayhi salaatu wa qofka mu'minka dhidid ayaa ka soo booda xusn khaatima calaamadaha waxa kamida in uu qofku dhinto laylat aljum'a habeenka jumcaha inuu dhinto ama dharaarteeda inuu dhinto imaam ahmed waxa uu soo saaray iyo imaam tirmidhi abdullah ibn amr inuu nabigu yiri sallallahu alayhi wa sallam muslim ma jiro dhimanaya maalinka jumcaha ama habeenka jumcaha illa waqahu allah fitnat alqabr illa haddu jiro ilaahay waxa uu ka badbaadiyaa cadaab alqabriga garanaya qofka inuu ilaahay waafajiyo shahaadada inuu waqtiga u farxo calaamada kale waa dhabanadiisu inay dhididaan waqtigaas nabigu waxa uu yiri calayhi salaatu wassalaam almu'minu yamuutu bi'araqi aljabin qofka mu'minka marka uu dhimanayo labadiisa dhaban ayaa dhidid ka soo booda dhidid buu ku dhintaa buu nabigu calayhi salaatu wa qofka mu'minka dhidid ayaa ka soo booda xusn khaatima calaamadaha waxa kamida in uu qofku dhinto laylat aljum'a habeenka jumcaha inuu dhinto ama dharaarteeda inuu dhinto imaam ahmed waxa uu soo saaray iyo imaam tirmidhi abdullah ibn amr inuu nabigu yiri sallallahu alayhi wa sallam muslim ma jiro dhimanaya maalinka jumcaha ama habeenka jumcaha illa waqahu allah fitnat alqabr illa haddu jiro ilaahay waxa uu ka badbaadiyaa cadaab alqabriga garanaya qofka inuu ilaahay waafajiyo shahaadada inuu waqtiga u farxo calaamada kale waa dhabanadiisu inay dhididaan waqtigaas nabigu waxa uu yiri calayhi salaatu wassalaam almu'minu yamuutu bi'araqi aljabin qofka mu'minka marka uu dhimanayo labadiisa dhaban ayaa dhidid ka soo booda dhidid buu ku dhintaa buu nabigu calayhi salaatu wa qofka mu'minka dhidid ayaa ka soo booda xusn khaatima calaamadaha waxa kamida in uu qofku dhinto laylat aljum'a habeenka jumcaha inuu dhinto ama dharaarteeda inuu dhinto imaam ahmed waxa uu soo saaray iyo imaam tirmidhi abdullah ibn amr inuu nabigu yiri sallallahu alayhi wa sallam muslim ma jiro dhimanaya maalinka jumcaha ama habeenka jumcaha illa waqahu allah fitnat alqabr illa haddu jiro ilaahay waxa uu ka badbaadiyaa cadaab alqabriga garanaya qofka inuu ilaahay waafajiyo shahaadada inuu waqtiga u farxo calaamada kale waa dhabanadiisu inay dhididaan waqtigaas nabigu waxa uu yiri calayhi salaatu wassalaam almu'minu yamuutu bi'araqi aljabin qofka mu'minka marka uu dhimanayo labadiisa dhaban ayaa dhidid ka soo booda dhidid buu ku dhintaa buu nabigu calayhi salaatu wa qofka mu'minka dhidid ayaa ka soo booda xusn khaatima calaamadaha waxa kamida in uu qofku dhinto laylat aljum'a habeenka jumcaha inuu dhinto ama dharaarteeda inuu dhinto imaam ahmed waxa uu soo saaray iyo imaam tirmidhi abdullah ibn amr inuu nabigu yiri sallallahu alayhi wa sallam muslim ma jiro dhimanaya maalinka jumcaha ama habeenka jumcaha illa waqahu allah fitnat alqabr illa haddu jiro ilaahay waxa uu ka badbaadiyaa cadaab alqabriga